inaad noqoto arday nidaamsan waa aasaaska aad ku gaari karto natiijooyinka ugu wanaagsan ee dhanka waxbarashada waa bilow asaasi ah oo marna aan laga maarmi karin haddaba si aad u gaarto inaad noqoto arday nidaamsan oo guuleysta waxaan idiin soo gudbinayaa 4 arrimood oo muhiim u ah hadafkaaga waxbarashada waa inaanu ku koobnaan sidii aad buundo sare ku keeni lahayd oo qura waa in aragtidaadu intaa ay dhaafsiisnaataa waxaad xamaasad badan iyo firfircooni aad heli doontaa oo naftaada dhiirigelin u noqonaysa marka aad dejisato ahdaaf gaar ah oo dhanka waxbarashada sida inaad takhasuskaaga xoogga saarto oo aad u sii diyaargaroodo adigoo aanan ku ekeenaynin manhajka iyo duruusta uu macalinka kuu dhigo ku fikir oo sii meelay marka aad dugsiga sare ama jaamacadda aad dhamayso sida ay aqoontaadu noqon doonto cilmigaagana aad bulshada wax ugu tari lahayd arrintaasi waxay kugu dhiirigelinaysaa inaad si wanaagsan wax u barato si joogto ah u xisaabtan si aad u ogaato in aad waddadii saxda ahayd ku socoto iyo in kale saaxiibka wanaagsan ee dadaalka badan mar walba wuxuu kuuga hagaa hadafkaaga nolosha sida ugu wanaagsan uu kuu dhiirigeliyaa sidaa darteed marnaba ha yaraysan saaxiibkaaga wanaagsan ugu dambeyntii ardayga wanaagsani waa ka qorshaysta noloshiisa hadaf samaysta han iyo hiigsi leh isla markaana waqtigiisa ka faa'iidaysta